wafdi wasiira oo ka socday xukuumadda Soomaaliland oo harkacayeen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo waliba biyaha wafdigan ayaa waxay magaalada Boorama u yimaadeen sidii dib loogu bilaabi lahaa mashruuca biyo ballaadhinta oo dhawaan hakad galay kadib markii askari ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliland lagu dilay deegaanka ay ka socotay mashruuca biyo ballaadhinta oo ku yaala galbeedka magaalada Boorama. wafdigani ka socday xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay maanta socdaal ay ku tageen deegaanka Afraag oo ah goobta laga hirgelinayo mashruuca biyo ballaadhinta waxaana halkaasi wafdiga ku soo dhaweeyay dadka deegaanka. munaasabad kooban oo halkaasi loogu qabtay waxa ugu horeynba halkaasi ka hadlay duqa degmada Boorama Salebaan Xasan Xadi barasaafka gobolka Awdal waxaana ka dhawaajiyeen أنا كواد لي أفكي ديجان كأو هالك كسوج هذا أو أنا هاي كي أدورتين أو كواد لي أفكي قوله ديجان كا بيرد وحلي وردت كي كدورتين معاه كل عي والله قرن دارا كوري أدوي كل حي لكن مركل سكوي محلي هذا مرة تعال سكوش شاقد ده رونتين سكوش شاقد كوين ولا حين كرويني ما أنت والودي هاي هذا إنه واحد بدن قرقرين إنه ما أنت واحد إنه ما قرصوم كريان هذا حتى إذا قارنوا أنا قال إنه قري كرين وأنا قد بيريال لقول إنه قرك خاينني هذا إنه قرك وش يقول رنتا ما أنت أوامر بحال كبح هذا أوامر تاسيدي كنا وايدين دن دولتنا واودن وحلا دون يمرك إنه نقول دقن نقولانه واحد دولته كلها عرتي أو ما أنت وسيرات سنقول شوغان دقن كاسينا نبيه الآن يا waxa la nooga doonayaa anagu wala nagu canaatay halka shilkii ka dhacay ee gudihiina ka dhacay hadaan mas'uuliyiinta nahay canaan baa naga soo gaadhay waayo mas'uul baanu ka ahayn meesha waan joognay idinkuna waa naga sii canaan badnaanaysan intaasi kadib waxa geestooda hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland sidoo kale wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka Awaala Shirwac waxayna ka dhawaajiyeen aqliga ku dar ana iga daayina way ka soo noq nabadgelyada ilaaliya hadii aanan ina ku huurinayno oo qarinayno inamadeenna waa qaba kari lahayn laakiin se waxa weeyaan waxaan fahmi waayay ma jiro oo de moogtay leeynaga dhaadhiciyay ina dal xoreyno oo reer Axmed xoreeyo oo sabaroonka u xoreeyo laakiin sabaroonki wuxuu yiri goorma noo xoreeyay waxa garan lahay hadaba mar hadii leeynayn goorma noo xoreeyay maxaa uga joogsan laana afartan inaan adeer weyla halka in la gaarsiiyay mid baan idin sheegay rag iyo dumarba inama qabato waxaas ka dhaceen ee dhibaatada inta laga imka halka isku kiin keenteen oo aanana u soconaa ka timid waa noloshii waa biyihii waa kuwii aanay cid naf leh dhagaxaas aanu ka maarmaynin ee la doonayay in ummadan lagu waraabiyo marka ay inama yaryaroo inaga midi ummadda dhan inta leeg noloshooda iyo nabadgelyadooda caqaranayso lama aqbali karo waa inaan reer hebela inaan kuwa qofku ummadan danteeda ma burburin karo haddii aanay wax kale ku jirin waxaan aqoonsanahay nabadgelyo iyo aqoon iyo deganaansho iyo ilbaxnimo ayaa lagu tilmaami jiray dadka halkaa jooga in badan baa maanta bilaabiya halkaa jooga de xigmaduna waxa weeyaan in xaq bay u leeyihiin inay dadkaasi mashaariicaha dawladdu dirqiga ku soo gaaray inay helaan oo si fiican u fulaan boqolkiiba 90 dadku ka badan dambi kuma laha oo laakiin de qofka carqaladeynaya markaas wasiirada hore sheegeen in dadku ka midoobaan oo wax laga qabto ayaa muhiim ah sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid ah caaqilada deegaanka waxaana uu sheegay waxa weeyaan Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ceedceeda laguma qarin karo sacab hadii lagu tilmaamay bulshada halkan degan ee waliba jufada hoosaan u sinay sidii wasiirka igu barigi hore sheegay hadii lagu tilmaamay wax ceedceeda maanta aan joogin ma cid ba qarin
lama qarinayo horumarka ka biyaha horumarka Soomaaliland dhammaanteed diyaar baan nahay asalkana salla waxaan u ahayn sida la sheegayo inayna wax xumaana oo jiritaanka Soomaaliland ama saka ummadaba dadka gobolka awdal inayna ku lahayn xasaana darreynayna ku lahayna haddaan lahayn dad noo qira haddaan lahayn noo baqrina guntiga gabagabadii waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Axmed Kaahin waxaana uu ka dhawaajiyay ayaguna waxa cabtaan baa laadiin haddaydan biyihiinna u dagaalamin oo noloshiinna u dagaalamin ninaan waxay Soomaalidu taadaan ninaan kuu furi doonin iyaanu kuu rarin ragaan dantiinna ogeyna hadday biyihiinna iyo noloshiinna diidayaan miyaa helaysaan tabtaasaa ku noolaanaysaanoo silacaasaa ku noolaanaysaanoo noocaasa ahaanaysaan nin walibana madax buu idiin soo sheeganayaa nin walba suldaan iyo sheekh iyo shariif buu idiin soo sheeganayaa nin walbana maalqabeen buu idiin soo sheeganayaa idinkuna dhibaatadiinnu halkaasi ka muuqata markaa mashruuca waxaan doonaynaa dee warka iyagaannu qabnaa sababteeduu leeyahay abaabulkooduu leeyahay dadkii falalkan sameeyey ayay leeyihiin cid walba way leeyihiin waxaan doonaynaa markaan yaan dadkan la isugu soo gabanine Soomaaliland waxaynu nidhi dal xisbiye siyaasi aynu leenahay dimuqraadiyad baynu leenahay ninku dawladda mucaarid buu ku noqon karaa dayaan maantada biyaha laga burburinin isku soo wada duuba mashruuca biyo ballaarinta ee laga wada galbeedka magaalada Boorama ayaa waxa la filayaa inuu baahiyo badan oo ka jiray degmada Boorama uu dabooli doono waa Imraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama